nafyahay boga soo laadanow adigu bogahaaga dhayo aan ooye PSG irara ya salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saxaabta qaaliga ciyaaraha jecel waxaan ugu channelka soo booqo halka daawanaysiina waa dhiso official fadlan daawade haddii aad muuqaalkan markuu ugu horeysay hortaada soo maro oo waliba adigoo chief ugu soo maray waxaan ku sii naxariista ka codsanayna channelka subscribe tarta soo dhawaato si share garu la wadaag saxaabtada qaaliga sidoo kale muuqaalka dadka channel like share bal waxaanu maanta hadaba ka hadinaa laacibka dunida saameynta weyn ku leh ee ku raagay kooxda Camp Nou ka ciyaartay Berlusconi ee Barcelona laacibka Lionel Messi ayaa waxa uu guud ahaan ku raagay kooxda Barcelona oo muddo dheer u soo ciyaarayay isagoo daayarna uu yimid kooxda Barcelona uu koob badan la qaaday laacibkan hadaba Ballon d'Or-ka 6 Ballon d'Or haysta ee dunida saameynta ku leh Lionel Messi ayaa guud ahaan isagoo ilmeynaya waxa uu ka baxay gagada caalamiga ee Camp Nou laacibkan ayaa sababaha loo qorsheynaya inay kooxda Barcelona ku guuldareysatay in ay mushaarkiisa bixin karto ayna u saxeexdo laacibka Lionel Messi ayaa suuqa waxa la soo dhigay bishan ku jirnay ee August hadaba kooxo badan ayaa intaha ku hayay laacibkani sida Chelsea Man City PSG laakiin waxa la xaqiijinaya oo laacibkani uu cadcad yahay uu baroor diiqayo uu leeyahay PSG Garcia laacibkani waxa uu wuxuu la midoobi doonaa laacibkiisii hore saaxiibkiisii qaaliga Neymar Junior oo hadda halkaasi ka xamaasha sidoo kale waxa uu ka garab ciyaari doonaa laacibka wadniisa hoos u foornay Kylian Mbappe ee da'da 20 jirka laacibka Lionel Messi ayaa waxa uu leeyahay oo hinteen ma aha tu farxadeed balse waa oohin aan ka qomameynaya ka tagitaanka Camp Nou waxaan haystay saaxiib aad iyo aad u tiro badan aad u fiican isla jaan qaadi balse ma kula tahay daawade hadaba inuu laacibkan Lionel Messi la jaan qaadi doono PSG ma kula tahay inuu laacibkan la qabsan doono PSG balse kooxda weyn ee PSG ee ku taagta lacagta iyo wali farfardhisa ayaa waxa ay durbaba Lionel Messi ay ku soo iibsatay lacag aad u qaaliya laacibkan ayaa waxa uu la midoobi doonaa labadiisa saaxiib ee bidixda kala ciyaari doona shaxda maxay noqon doontaa shaxda PSG sanad kale ku ciyaari doonto ku darso meesha waxa ay yimid isaguna ninkii Real Madrid ka ciyaari jiray ee kabtanka Ramos ninkaasi waraabo ba ku kacsan ninkaasina hadda waa jooga ma kula tahay daawada in ay iska garab ciyaari doonaan halka maxay shanta uu istaagi doonaa ma afarta istaagi doonaa Ramos oo kabtan qalba difaaca halkan waxa ka ciyaari doonaa Kylian Mbappe waa wadni soo foor xaga waxa ka ciyaari doonaa Neymar Junior Di Maria Wijnaldum Freddy ayay balay kachini Ashraf Hakimi oo isagana Inter ka yimid oo soo boodbood bala waa tanaaya ya salaam laacibka Lionel Messi ayaa hadaba waxa uu leeyahay aan ooyay albaabka xidha waxa ku jirta kooxda Barcelona oo ka qomameyn doonta ka tagitaanka laacibkan Ballon d'Or-ka badan haysta 6 Ballon d'Or waxa uu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee 6 Ballon d'Or ku guuleysta laacibkan ayaa hadda waxa uu daadiisu tahay 34 jir inta barnaamijkan muuqaalkan